معقول هاي وعقل بالآدم كقلي والله كذا قفتنا ضد باسيدا وقلي ضدك مركي ورا ماشي أي لتشوكتو كحيستي باسيدا وقلي كدبنا مركي مدة موجي واحد اسكو قبتين مركي دنتودي كجارين أما أي واحد كل شيء اسكو أفجروا وعينا كورنا يجا حبس الجيو ماشي الجي أنا قلنا وحن للي وحبي جورستي أنا قد دقيقة نوتاي كورنا اسمها نودا شيء نوتاي كور مرنا نجمع نسنين إنه ضد جورستي ما فهمت أيضا لو جورستي أنا لكن haddii ay jirto oo macquul tahay in ay ayagu waxa sameeyayna deedoonkan iyo cadeyn baa lagu kala baxaa waxa jirta dumarkii ay guursatay ayagu dambiga waxbay ka leeyihiin haday dumar guursatay waa in inta la keeno faadimo iyo farxiyo habla inta la keeno waa in la yiraahdo hablaayi gabadha guursatay ma fahanto laakiin ma bahaynaba dadkaas hadda waxay guursatay waa in haddii ay jirto oo ay waxay ku soo eedeeyeen ay wax macquul ah runtahay waa inay noo keenaan wax cadeyn ah oo baaritaan run ah noo sheegaan haday ayagu waxay sheegayaan ay dhab ka dhiganayaan ma aragteen oo adigu shakhsiyan ma daawatay muuqaalka laga soo duubay markay hadlayso waxyaabaha cadeynta oo meesha la soo dhigay oo la yiri waa adeegsan jirtay waxyaabaha anoo ka xun inaad qoyski tihiin oo idin waxyaabahaas hoose rabin inaad gashaan waxyaabaha ma aragteen hadda aragteen si wax macquul ah ma idin la noqotay oo suurtagal gali kara shakiga marna suuraha marna ma idin soo gaaray shakiga marna ma idin galay may marna shakigaasna ma gali waxa bini'aadamku markay qofka wax ku eedeeyaan Soomaalida horta sideedaba waxa jirta wax ay dhahay qabiil ma fahanti gabadhan qabiilka meesha waxa anagu maqalnay hadda markay meesha joogtay qabiilkeedii sheegan jirin oo qabiil reer awowgeed inay sheegan jirtay waxa hadda uu tuhun maqalnay markay qabiilkeedii ogaadeena inay inta dhahan gabadhan hubay wadataa waxaasay wadataa inay xabsiga keeneen marka markay wax la duubayana walaalo oo wax qofka lagu soo bandhigayo wax oo markaas qofku watay maahane qofka timaha markaas laga xiri karaa darka markaas u xiri karaan waxana ay dhahan qalab nin weeyana ayagu sameeyaan ana ayadu wadatay qofka Keenyan anagu ma cadeyn ma haysano in ayadu wadatay iyo in ayadu nin ku wadatay ma fahantay qof dumar ah oo ilaa hadda inta soo istaagay gabadhan waxaan ugu qabtay yirina ilaa hadda ma hayna marka cadeyn ma haysanay maxaan ku rumaysan marka waxa codsanaysan waxa weeye kiiska in la baaro si daahfuran loo baaro si cadaalad loo eego maxaan ku raahdaayay sida wuxuu jiraan laga gungaaro sidaas ay ka codsanaysan weeye soo hadalkaaga biyo dhiciis waa sidaas Soomaa dadka gacanta ku haya maamulka galmudug anagu waa isla degnaa dadkana ehelnima ka dhaxaysa bini'aadanima ka dhaxaysa Soomaalnima ka dhaxaysa qofkan inuu qof dumar ah qof dumarkuna sideedaba dhaqan baa Soomaalidu leedahay waa in loo naxariisto waa in la ceebeeyo ma wanaagsana dadkan gacanta ku haya waxaan ka codsanaynaa inay qofkan inay maskaxdeeda iyo qalbigeeda dhowraan kaamiradan iyo fiidiyowgan iyo dadkan daawashada u imanay inay ka daayaan anaguna sidii hadda dadkaas aan la xiriiri lahayn wadadeedii baan haynaa inta anaga inaan ugu simaan waxa ay facsharayaan oo ay sameynayaan oo bini'aadanimada ka baxsana inay naga joojiyaan baan ka codsanaynaa waayahay waa sax weeye waa adduunka sharciyadu ma badhigayaan qofta maxaa kula qofku intuu eedeysanahay in dambiilo lagu tilmaamo idaacada iyo meelaha la soo istaajiyo wali ciidanka gacanta ku haya ama maamulka galmudug oo kale to booliska oo kale ma la xiriirta wax xiriir ma idin dhex maray may qof baan u dirsanay wiil baan u dirnay oo family ah oo qabiilkaas ka soo jeeda laakiin ayada ehelkii sheegeen awowgeed wax isku yihiin marka wiilkaas kaliya wuxuu noo sheegay inay meel qabto oo meel joogto laakiin wax faahfaahina waxay dhahay waxba idama siinayno wana hadlayno inaan baarnaa rabna marka baaritaankiina ka hor dhici mayno waa sugaynaa laakiin waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed oo social media ku jirto dadka xumaantooda faafiya inay gabadha miskiinta xanuunsan wixii ay ka faafinayaan ka joojiyaan kuwa gacanta ku hayana meesha loo soo marayo waa iyaga inay joojiyaan intii ay waxaan meel u dhacayaan waa aad ba u mahadsan tahay hadii aan anigu ay suurtagal ii noqoto oo taliyaha booliska galmudug oo kale to ama taliyaha qaybta gobolka mudug ee maamulka galmudug aan helo oo kale ma idin ku soo xiri karaa oo diyaar ma u tihiin inaad la xiriirtaan waan ugu soo xiri kartaa qof kasta oo bini'aadan adiga kaliya ma ahane oo gacan naga geysan karo oo naga caawin karana diyaar baa u nahay
qorshaha ma idinku jirtaa bacdama gaalkacyo iyo caabud waaqaysan aad u kala fogeyn gabadha qabiilkeedii iyo ehelkeedii ay halka joogaan in caabud waaqid laga soo diro gaalkacyo lagu keeno qorshaha way nagu jirtaa taas waxay dhaceenba waxa ka 30 saac kama soo wareegin wuxuna waxay ahaayeen wax ama kaaga wax qof kasta filaaya ma ahayn haddana abaabulkii iyo qorshihii way ku jirtaa in meesha loogu tago dad loo diro وآد يا آد بانك هذا مهد علينا يا ورئيسك السيسي أديكوا حبين كميدا قويسكا إن دقو إسلام مركزنا أي كوسو وكيشين إن ورئيسك كان السيسو ولا عليه يو حبناها كلاتا قويسكا وكذا مهد علينا يا سيد قيمة على ورئيسك السيسي ومدة الصوماليين نوح رجينا يا إن تلاذا أسود جلسي يسيدا ورك أب حسيبة إذنكوا قويسكا أي قاتان إسلام مركزنا حكتها بحسي يقبلها شخصية ده محاك وله هاي الاحترام أو ورك من أواك اللي ركرجوا يوم لها المرين هنا هل كان لجوسو جوجيو وأنا كشينا عليها بشرح شنو كريبي أو إني قعد صنايع إن برهان كسيشير جريسان جنر كيانا سبسكرايب جريسان تاني أنت برهان كلام إذا كل من دوننا وحين كل دافيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.